kula wanaagsan akhyaarey ku soo dhawaada barnaamij kale oo ku saabsan taariikhda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo waliba qadiyada la xidhiidha xaqa ay Soomaaliland u leedahay in loo aqoonsado oo ay beesha caalamku u aqoonsato dal madax bannaan maadaama ay hore u ahayd wadan madax bannaan. qodobka waxaynu ku soo qaadanaynaa qormo uu qoray Ibraahim Xasan Gaagaale oo ka tirsan ama se ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliland ee inta badan ka falanqooda arrimaha taariikhda qadiyada Soomaaliland iyo waliba kuwa mandaqadan Geeska Afrika. waxaanu aqoonyahanku qoraalkiisa ku bilaabay sida tani: Soomaaliland laguma sheegi karo meel goosatay gooni istaaga iyo wax la mid ah. Soomaaliland waxa ay ahayd maxbiyad Ingiriisku xukumayay 8 sanadood oo ah sanadihii u dhaxeeyay 1884 ilaa 1960 waxaana xurnimadeeda qaadatay 26 Juun 1960 oo in ka badan 30 dowladood ictiraafeen iyada oo markaasi Soomaaliya ama egas koonfur weli ay mustacmaradda Talyaanigu haysato. intaa ka bacdi markii ay Soomaaliya iyana xorowday ee ay Soomaaliland si dhaqso ah oo aan laga fikirin lagana fiirsan shuruud la'aan ula midowday, sababtuna ay ahayd shacabka Soomaaliland oo jibo waalan oo aan xal lahayn ay haysay. sanadkii 1969 bishii Oktoobar ayuu Siyaad Barre inqilaab ku qabsaday wadankii burburay ee la oran jiray Jamhuuriyadda Soomaali, waxaanu ku dhaqaaqay inuu wadanka ku xukumo kaligitirasnimo waxshinimo ah, waayo wuxuu ahaa nin Soomaaliland ku soo qaaday dagaalkii bahalnimada ahaa ee shacabka badan ku xasuuqay dad lagu qiyaasay 50,000 oo qof, isla markaana burburiyay magaalooyinkii Soomaaliland meeshana ka saaray. xilligaasi waa sanadkii 1984 ilaa 1990. taasi waa ta keentay in ururkii SNM halgan hubaysan ku qaado maamulkii kaligitaliya ahaa ee Siyaad Barre, kana xoreeyaan dhulkoodii kana eriyaan bishii January 1990. wixii markaasi ka dambeeyay Soomaaliland waxa ay ka baxday midnimadii markii horeba beenta ahayd, dibna waxay ula soo noqotay dowladnimadeedii ay 26 Juun 1960 qaadatay, waxayna la baxday magaceedii ay xornimada ku qaadatay ee Soomaaliland. laakiin ilaa imika lama garanayo sababta ay beesha caalamku u xaqirtay ee ay Soomaaliland uga heli weyday mar kale aqoonsi diblomaasiyadeed. asalkaba waxa midnimada la yiraahdaa maaha shay muqadas ah, waa wax haddii labadii israacay is-afgaran waayaan ama heshiin waayaan ku kala noqon karaan, iyada oo dhinac waliba dib ula noqonayo dowladnimadiisii iyo aqoonsigiisii gaarka ahaa. aqoonyahanku isagoo qoraalkiisa sii wata waxa uu tusaale u soo qaatay oo uu yidhi: tusaale ahaan waxaynu soo qaadan karnaa federationkii Senegambia ee ay samaysteen Senegal iyo Gambia sanadkii 1982, laakiinse lagu kala noqday sanadkii 1989 iyo midnimadii dhex martay Masar iyo Suuriya sanadku markuu ahaa 1954, kaasi oo isaguna burburay sanadkii 1961. afartan wadan mid waliba wuxuu dib u helay aqoonsigiisii iyo dowladnimadiisii iyadoo oo aanay laba cali ku wada hadal. ururka midowga Afrika iyo jaamacadda carabta midna may ishortaagin kala noqoshadii Masar iyo Suuriya. sidaasi awgeed su'aashu waxa ay tahay, waa maxay sababta Soomaaliland dowladnimadeedii ay la soo noqotay 1991 mar kale loogu aqoonsan waayey, kor haddii lagu heshin waayey midnimadii marka horeba beenbeenta ahayd ee weliba dhiigga badan lagu daadiyey ee dhex martay Soomaaliya. wadanka koonfurta Suudaan oo aan haysan shuruudo ay Afrika dowlad ugu aqoonsan karto waxa ay hadda aqoonsadeen 2011. koonfurta Suudaan ma haysato xuduudihii isticmaalka, sidaas darteed mar kale su'aasha meesha taala waxa weeye, maxaa loo aqoonsan waayey Soomaaliland oo leh xuduudihii isticmaalka sida wadamada kale ee Afrika ee ku jira ururka midowga Afrika? marar badan waxa aynu maqalnaa haddii Soomaaliland la ictiraafo Afrika ayaa kala cararaysa, oo haddii Afrika ay qaynuun ka dhigatay xuduudihii isticmaalka maxaa keenaya in la kala cararo? hadduuse hadalkaasi dhab yahay, maxay koonfurta Suudaan u aqoonsadeen oo ku furi kartay ama ku furi karta albaab ah in Afrika qabiil waliba ama qoomiyad waliba dowladnimo ku dhawaaqdo, iyada oo xaqiiqada caynkaas ah ee Afrika aqoonsatay xuduudihii isticmaalku ka tegey? ayay qaar yidhaahdaan Soomaaliland waxa ku jira dhul lagu muransan yahay, mase jiro wax lagu muransan yahay oo ku dhex yaala xuduudihii isticmaalkii. wadan wal oo Afrika ka tirsan wuxuu dowlad ku yahay xuduudaha isticmaalka. Somalilandna gaar kama aha wadamadaasi oo waa mid ka mid ah, mana jiro wadan Afrikaan ah oo ogolaanaya in qayb ka mid ah dhulkiisa lagu sheego dhul lagu muransan yahay. sidaas darteed haddii aan la joojin oraahda caynkaas ah ee Somaliland lagu leeyahay waxa ku jira dhul lagu muransan yahay, Somalilandna mustaqbalka waxa u bannaan inay qayb ka mid ah dhulka Afrika ay u aqoonsato dhul lagu muransan yahay. sidaasina qaaradda Afrika waxay u horseedaysaa dagaallo, xasarado, beelo iyo weliba qoomiyado dagaal joogto ah
ka dhaxeeyo oo Afrika god dheer oo madow ku rida sida aanu waddan Afrikaan ahay xornimadiisa ugu daba fadhiisanayn waddan kale oo Afrikaan ah ama aan loo baahnayn in laga qaado afti in uu waddan noqdo ayaana Somaliland waddan kale oo Afrikaan ah u daba fadhiisanayn xornimadeeda kol haddii Somaliland xornimada iyo dowladnimada ka hor qaadatay Soomaaliya sidaasina aan wax shuruud ah loogu xiri karin dib aqoonsiga Somaliland haddii ururka midowga Afrika Somaliland ku aqoonsan waayo xuduudihii isticmaalka sida wadamada kale marka waxba kama jiraan qodobkii shirki Qaahira lagu gaaray sanadkii 1964 kaasi oo dhigayay in ay lama taabtaan tahay xuduuduhu isticmaalka ee ay markaasi wadamada Afrika u dhigeen qodobkaasi oo ujeedadu ahayd in haddii la taabto la filan karayay isdhaxyaac aan laga soo waaqsan waana hubaal in qabiil walba iyo beel waliba goonigoosad noqon lahayd ama ay dooni lahayd aqoonsiga diblomaasiyadeed ee waddan kasta oo Afrikaan ahay dowlad ku yahay waa xuduudaha in Somaliland loo diidaana in mar kale la aqoonsadaana waa khalad weyn Somaliland waa in aan laga soocin oo aan laga faquuqin waxa ay dowladaha kale ee Afrika aqoonsiga ku heleen hubaal weeye haddii Somaliland la iska hortaago waxa ay xaq u leedahay intaasi dhiiri gelin doonto jabhado samaysma oo yiraahda xorriyad baan doonaynaa sida jabhaddii koonfurta Suudaan ka dilaacday oo kale kuwaasi oo xuduudaha ku sheegi doona wax isticmaal sameeyay oo ay xaq u tahay in meesha laga saaro si loogu ogolaado in beelaha ama qoomiyadaha laba xad ku kala nool dal gaar ah u samaystaan tani waa digniin dhab ah kuna socota midowga Afrika iyo waddan kasta oo Afrikaan ah oo mustaqbalka doonaya dhulkiisa oo dhan iyo midnimo waddaniyad ku qotonta sidaas darteed waxaa midowga Afrika ku waajib ah inay hormood u noqoto aqoonsi mar kale jamhuuriyadda Somaliland hesho si looga hortago balaayo ku habsata qaaraddan Afrika waxay nabad iyo deganaanshiyo ku heli kartaa oo kaliya iyada oo ixtiraamta ilaalisana xuduudihii isticmaalku uga tegay xuduudaha isticmaalka ee Afrika waxa ay la mid yihiin kuwa Aasiya Latin America iyo Carabta midowga Afrika oo kaliya ayaa mas'uul ka ah wixii ka dhaca hadday sida ay yihiin u aqoonsan weydo u ilaalin weydo xuduudaha isticmaalku sameeyay isla markaana iska indhatirto sharciyada xuduudaha u dhaxeeya Somaliland iyo saddexda waddan ee kala ah Ethiopia, Djibouti iyo Soomaaliya qoraalkanina waxa qoray oo isagoo luqadda afka Ingiriisiga ku qoran baahiyay aqoon-yahan Ibraahim Xasan Gaagaale waxa soo turjumay ururka xoojinta qarannimada Somaliland halkan waxa idin kala socodsiinayay anigoo Salmaan Cabdi Cali ah taliyo barnaamijkan lamid intaan isku imanayno nabadgelyo